وكلها هدا قبيعات كفرتان وفنقول بايا إنك قبيعات نقول تاؤول نقول بايا نقول يا كل غير فتوي كودي بشي أكتوبر سنتكي لبدي كن يلبية طبانكي waxaa geeriyooday allaha u naxariistay abwaan maxamed xaashi dhamac gaariye waraysigan waxa aan ka qaaday maalmo kooban ka hor dhimashadiisa isagoo oo waqtiga ku sugnaa cisbitaal ku yaal dalka Norway xilligan waxaa dalka Soomaaliland ka socotay dabaysha furistii ururada siyaasadda ee ay ku soo baxeen saddexda xisbi siyaasadeed ee kulmiye iyo ucid oo hore u jiray iyo wadani oo xilliga xisbi qaran noqday waraysigan oo ay baahisay idaacadda radio Hargeysa oo dhinacyo badan taabanayay ayaa rabbi ha u naxariistay abwaan marxuum maxamed xaashi dhamac gaariye waxa uu fariin khusaysa doorashooyinka iyo tartanka ururada iyo xisbiyada siyaasadda uu isagoo oo xanuunsanaya waqtiga hawada u mariyay bulshada Soomaaliland waana waraysigii iyo dardaarankii ugu dambeeyay ee abwaan gaariye bulshada la wadaago dhimashadiisa ka hor taasi oo si toos ah u taabanaya xaaladda imika ee doorashada isa saaran ee Soomaaliland ka dhacaysa 13 bisha November 2024 hadii rabbi idmo ila dhageyso dardaarankii abwaan gaariye ee xilligaasi waxaan ka baqlayay ayaamadii waxaan ka baqlayay hadii ka baqlayay inuu faafin bayaano oo rahan tatabo xisbiyada وهواسي طبعا هذا بتتعاون نقدر هذا واحد يسمى قبال وحلاها وهذا هو الشافعي وهذا هذا قبيعات كفرتان وفنقول بايا إنك قبيعات نقول تاؤول نقول بايا نقول يا كل غير فتوي وخلاها يوم بدقية dadku ha isku raaco ujeedooyin iyo aragti ay isku raaco iyo isku raacay iyo qabyaalad yaa isku raacay xabagta isku haysa dadka qabiilka isku raaca iyo xabagta isku haysa dadka gobolka isku raaca waxya laakiin si xabagta isku haysa dadka aragtida isku raaca xabagtaas ma socdo taasaa kuwa dardaarmaya waxaa kuwa dardaarmaya nabadgelyada ilaashada intaasaa dardaarmaya haddii aad dhageysatay dardaarankii marxuum gaariye waxa kula gudboon in aad u ducayso marxuumka sidoo kale inaad qaadato fariintiisu waa mid dalka iyo dadkaba anfacaysa